السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal saaxiibayaal dhageystayaasha hawada inoogu heelanow ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii waxbarashada barnaamijka waxa caawa halkan idin ka soo jeedinaya waa saaxiibkay Cabdisamed Maxamed Samatar waxaan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan caawa waxaan ka hadlaynaa barnaamijka waxbarashada inoo ku eegno qodobo muhiim ah oo ay kamid yihiin xaaladda waxbarashada qaxootiga iyo wareysi aanu la yeelanay Cabdimaalik Biikole waxaa ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen in ka badan 2,000 oo qaxooti Soomaaliyeed kuwaas oo inta badan wax ka barta iskuulada kala duwan ee ku yaala magaalada Sanca waxayna isugu jiraan arday wax ka barata iskuulada lacagta iyo kuwa aan awood u lahayn inay ka qayb qaataan waxbarashada lacagta oo ah iyagu hoostaga hay'adaha kamid ah hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo lama ka farcama hay'adda dadka wax ka barta iskuulada iyo guud ahaanba goobaha waxbarashada oo inta badan waxay yihiin dumar iyagoo aad dareemayso inay buuxiyeen boosaskii ragga haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ragga u diiday goobaha waxbarashada inay ka qayb qaataan su'aashaasi waxaan hordhignay oo aan weydiinay Cabdimaalik Maxamed Biikole oo wax ka barta magaalada Sanca ee dalka Yemen kana tirsan wariyaasha idaacadda codka qaxootiga ee magaalada Sanca taas waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed ama barraga badanaa ee waxbarashada ma daryeelan ee shaqooyinkooda iyo sidoo kale waxay barteen qaadadka iyo say qaad maqrabadii u cunaan meelaha marka dumarkii ayaa wax bartay rag badankooda wax saas wax mu bartaan Cabdimaalik hadii aan su'aal ku weydiiyo waxaad sheegtay in raggu ay inta badan ku mashquulaan qaadka ama waxa loogu yeeray qaylaada maxaa kalifay qaadku waxa uu yaalaa meel far badan oo ka tirsan dunida sida aan ogsoonahay sidoo kale Soomaaliya qaadku waa uu ku badan yahay waxaana jira in ragga Soomaaliya ku nool 80% ama 85% ay wax bartaan marka maxaa ka jeediyay ardayda aan dhahe dhalinyarada ku sugan dalka Yemen inay ka qayb qaataan waxbarashada maqaadkaad u diiday baad ku macnaynaysaa walaalo horta ma dadka taariibka soo galayo ee dadkii Soomaaliyeed ee halkaas wax ku baranayay waa kuwa wadankii dagaaliyo qasa ay ku soo wadeen markay yimaadeen taariib halkan ku imaaday markay wadanka ay soo galeen uma soo jeedaan inay wax bartaan ama uma soo jeedaan yaani inay noloshooda dambe mustaqbalkooda kama fikiraan ee waxay ka fikiraan wadankii haday ku laabtaan inay u shaqeeyo hogaamka hadiyaashii ama barnaamijyadaas markay sidaas awgeed ragga Soomaaliyeed ku nool wadanka Yemen jaadkii rageyska ah iyo sigaar waxyaabahaas iska bartaan waxbarasho iyo barnaamijyadaas uma soo jeedaan waatahay dhageystayaal saaxiibayaal waxa intaas inoogu eeg barnaamijkii waxbarashada caawa waxa halkan idin ka soo jeedinaya barnaamijka saaxiibkay Cabdisamed Maxamed Samatar oo isagu barnaamijka isu soo dibirday isla markaasna idin soo tabinayay Cabdimaalik Biikole oo kala qayb qaatay waxa idin xiriirinaya aniga oo ah Cabdirashiid Yaasiin Salal tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamij intaan la mid ah waa bahdii idaacadda codka qaxootiga oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo isma dhaafno tan iyo kulanti dambe fi amaanillah